سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكلنتي وعنا وناكسن دلهانتي بميل كستو يسكستو عن الله سعوتانبا وحنا دلنا يالكن وتلفزيون كعالمي سوماليدي توبيا يس تي في وضالا بعضهن وكلتا وقبرتن ان سيتو ساود idinku soo gudbino guud ahaan war wixii naga soo garay deegaanka warkeyga waxa si toos idinku qaada dhigi doona anigu waa Cabdirasaaq Ibrahim Daaja wadabada wararkan idinkaayna deegaanka ugu doorka roona waxa kamid ah aadima sharafeed soo dhaweynaha oo loo sameeyay qurbo joog u dhalatay gobolka Jarar ayaa ka dhacday magaalada Jigjiga ciidanka booliska gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa deeq isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan iyo biyo gaarsiiyay shacabka ka soo barakacay dalka Soomaaliya oo ay abaartu saameysay sidoo kalena ciidanka booliska gaarka ah ayaa deeq isugu jirta daaweynta dadka iyo dunyada gaarsiiyay shacabka degmada Mubaarak ee gobolka Daawa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal inta aynu ku guda jirno xilli tabintan wareed markala daawadayaal isku soo noqod wanaagsan haatan ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan aadima sharafeed soo dhaweynaha oo loo sameeyay qurbo joog u dhalatay gobolka Jarar ayaa ka dhacday magaalada Jigjiga sida warbixin muurtaasi ku saabsan inoogu soo diyaariyay wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata munaasabadan qada sharafeedka oo loo sameeyay qurbo joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan qurbo joogta ka soo jeeda gobolka Jarar ayaa ka dhacday xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga munaasabadan oo soo agaasimay Xaaji Maxamed Buraale oo kamid ah ganacsatada deegaanka ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay wasiirka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Baasha Cabdi Ismaaciil
oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka qurbajoogtana u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya ay markaas yimaadeen deegaankooda hooyo isla markaana waxa wasiirku ku booriyay qurbajoogtani sidii ay markaas kaalintooda uga qayb qaadan lahaayeen horumarka ballaaran ee markaas ka tisqaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya ayna ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka عزومات أما قضاء واسمي حاج محمد براله أيام ما عندك سقيب قالني قربتشوك كالدول أو كتمت ودما كالدول مركز قربتشوك وحنا هاي تلقوا دلكين كسر وهذا مال قشرة وحكي قبصة dhankiisa waxa isaguna ka hadlay munaasabadani Xaaji Maxamed Buraale oo kamid ah ganacsatada deegaanka waxa uu halkaasi ka xusay horumarka ka hirgalay deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba fursadaha dihan ee maanta ka jira deegaanka ee dhinaca ganacsiga iyadoo uu markaasi ku booriyay qurbajoogtani sida ay kaalintooda uga qayb qaadan lahaayeen fursadaha maalgashiga ee waqti xaadirkani ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan ku soo dhaweynaynaa casuumadan oo la sameeyay qurbajoog inay ku soo dhawaadaan dalkooda oo wax ka qabsadaan marka waxaan leenahay ku soo dhawaada horumar baa ka socda horumarka ka qayb gala dawladdu way kala taagan tahay ciidanka booliska gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa deeq isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan iyo biyo gaarsiiyay shacab ka soo barakacay dalka Soomaaliya oo ay abaartu saameysay warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay wariye Maxamed Cabdiwahaab ciidanka gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee liyu boolis oo kaashanaya xukuumadda deegaanka ayaa deeq isugu jirta raashin biyo iyo baadba gaarsiiyay bulshada ka soo barakacday dawladda Soomaaliya ee dariska nahay kuwaas oo ay saameeyeen abaarihii ka dhashay isbedelka cimilada adduunka waxayna bulshadani ay ka kala yimaadeen deegaanada Galsoor iyo Cadaado haddaba waxaan wax ka weydiinay gargaarkan ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu deeqday walaalahooda uu ka dhaxeeyo daris wanaagu Sheekh Axmed Nuur Rabi waxa weeyaan halkan waxay ka tirsan tahay santarka Dhudub bay ka tirsan tahay dadka abaaraysan waxay ka soo kala qaxeen Gelinsoor Cadaado meesha la dhaho Bandiiradley dadkaas oo magaranaysa dad abaaraysan oo meel qabala aan soo gaari waayay oo halka warkooda ku helaan halka kaga hortagnay hadda halkan aan ku suganahay sabab aragtaan waa meel baadiya meesha baadiyaha yaan dadka magaranaysa abaaraysan yaan kaga hortagnay halkaas aan raashin oo u geynay iyo biyo iyo dawo waxa weeyaan haddana waan la garab taaganahay oo waan sii wadaynaa dadka abaaraysan walaalahana dariska nahay dhibaatadooda wayna damqaysaa marka waan sii wadaynaa dhinaca kale qaar kamid ah bulshadii la soo gaarsiiyay deeqdan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin gurmadkan degdega ah ee xukuumadda deegaanku u fidisay iyaga oo tilmaamay in ay u mahad celinayaan xukuumadda deegaanka iyo ciidanka gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee liyu boolis oo naftooda iyo maalkoogaba u horay bulshada tabaalaysan dadka soo barakacay baan nahay dawladda sharafta leh baan u nimin sharaftooda waan ugu soo dhaweeyeen waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin xuduudda Soomaaliya abaara baan ugu yimid dib badan oo bahalka dhibaato badan haddana aan ka soo barakacnay dawladda hoosteeda hadda aan joogno qaybo kamida dawladda bahalkan la yiraahdo daawooyin hadda ayna siisay ilmiina ay noo daaweeyeen raashin iyo caawinaan hadda ayna siiyeen ay naguna gacan qabteen ay bahalka kuna mahadsan yihiin walaalahan wayna soo dhaweeyeen waxayna siiyeen inagoo Soomaaliya ku soo abaarsanay oo ka soo barakacnay oo nafaha caruurihii naga baqtiyeen oo dadkii waayeelkaasi oo u liito oo abaar kulul lagu dhacdo 2 sano nahayday waxayna siiyeen nabadgelyo oo dhulku uu soo nabadgelyo lahayn markii ugu horeysay nabadgelyo yay noo fidiyeen markii ugu xigtana biyihii bayna siiyeen markii ku xigtana raashinkii bayna siiyeen oo mushaarkoodii naga siiyeen dawladda calanka Itoobiya liyu boolis intaana siisay ilaahay baa mahad iskale waxaan u mahad celinaynaa ciidamada liyu boolis iyo dawladda fadhilka shanaad sida ay nooga gacan qabteen abaarta iyo amniga iyo quudunta raashinka oo ay mushaarkooda waliba ayagu jeebkooda ay ka soo gadeen ayaan uga mahad celinaa ilaahay baa mahad iskale liyu boolis waa mahadsan yahay wuxuu ka qabtay gargaarka raashinka biyaha intaas uu gargaaray amniga sidoo kalena ciidanka booliska gaarka ah ayaa deeq isugu jirta daaweynta dadka iyo duunyada gaarsiiyay shacabka degmada Mubaarak ee gobolka Daawa sidoo warbixin umurtaasi ku saabsan inoogu soo diray wariye Jilaani Cabdinuur dabkay sida lagu deersanayo liyu boolisow du'a qabahada dabkay sida loo deersanayo liyu boolisow
du'a qabaa haada ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda Soomaalida Itoobiya ayaa wali ku guda jira howlgaladii uu ku gaarsiinayay deeqda raashinka iyo dawooyinka noocyadooda kala duwan sida dawada dadka iyo xoolaha ee uu ciidanku u qaybinayay bulshada ku dhaqan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi Daawo iyo qabalay hoosaadyada iyo siiba dadka reer guuraaga ah goob kasta uu joogaba ayuu ciidanku wali ku hawlan yahay inuu gaarsiiyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan gobolkaasi Daawo daba ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda Soomaalida Itoobiya oo ay ka go'an tahay sidoo bulshada ku dhaqan gobolkaasi Daawo garab ooga siin lahaa hadba xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa maanta shacabka ku dhaqan degmada Mubaarak gaarsiiyay deeq raashinka noocyadiisa kala duwan iyo dawada xoolaha iyo dadkaba isugu jirta degmadaasi Mubaarak ee ka tirsan gobolkaasi Daawo ciidanka booliska gaarka ah dowladda Soomaalida Itoobiya oo bulshadaasi siman ugu qayminayay deeqda raashinka iyo dawooyinka isugu jirta ayaa haddana xooga saarayay isla mar ahaantaana diiradda saarayay dadka tabarta daran iyo kuwa danyarta ah daba qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyay deeqda raashinka noocyadeeda kala duwan iyo dawada xoolaha iyo dadkaba isugu jirta ee ku dhaqnaa degmadaasi Mubaarak oo ay ka muuqatay farxad iyo rayrayn oo aan waraysi la yeelanay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa bariis iyo sokor mushaakooda ay ku gadeen ummaddu qaybiyeen silii walaalnimada dushooda ay soo rareen walaalnimada ay wax u qaybiyeen waxaan u mahadnaqay celinaya ciidanka liyu mahad celinaya gacanta midigteenahay weliba ha noolaato liyu aan dhahaya annaga si fiican baan maanta farcad fiican baan helay ciidankeena new booliska maanta si fiican baan ugu imaadeen oo raashin baan loo qaybiyay raashin baa si fiican baan loo siiyay waxaan ku mahad celinayaa xukuumadeena wanaagsan ayaan u mahad celinayaa mahad baan u celinaynaa si fiican bay raashinka noo siiyeen liyu booliska nooga deeqeen raashinka noo gadeen mashaarkooda waxaan u celinaynaa mahad geesta kale qaar ka mid ah saraakiisha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee hogaaminayay ciidanka booliska gaarka ah ee bixinaya deeqda raashinka una qaybinaya degmadaasi Mubaarak oo isla mar ahaanta saraakiishaas hogaaminaysay ciidanka si wada jir ah wax uga weydiinay raashinkan ay qaybinayaan bulshada ayaa hadalladoodii waxa ka mid ah sida tan degmada Mubaarak oo mataqaanay saaka raashinka aan ka bixinayna sonkortii iyo dawadii iyo bariiskii mataqaanay saaka ay isugu timid sida aad aragtaan bulsho tiro badan aanu u qaybinayno ciidankuna uga soo gaday mushaarkoodii oo la soo gaarsiiyay ciidankii gaarkii oo mataqaanay dhawaanahanba gobolka Daawo degmooyin kamid ah mataqaanay raashimada ka bixinay ayaa saaka waxaan soo gaarnay Mubaarak haddana mataqaanay aan ka siinayna sida aad aragtaan wana socoto si habsamil qabalay dhammaan qabaliyadiisana aan gaarsiin doono nabadgelyada markii meel la saaray cadawgii la tirtiray aan dadka naga shacabka iyo dadka baahanba baahida iyo macnaheedu dhibaatada kulba ka jirta inaanu la qaybsano leena halgano aanu ballan qaadnay iminkana sida baryahan baan ugu jiray socdaalka macnaheedu raashin qaybinta gobolka Daawo oo iminkana aanu joogno degmada Mubaarak sida ay tahay inaan raashinkan ugu qaybino sida aan wada ogsoonnahay ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horeyba ay caado ugu ahaan jirtay inuu mushaharkiisa deeqan noocan oo kala ah uga soo iibiyo shacabkiisa guud ahaanba ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay deegaanku ayaa haddana howlgaladan uu ka wado gobolkaasi Daawo uguna deeqaya raashinka iyo dawooyinka uu baryahanba ciidanku ka waday degmooyinka kala ah degmada Hudad iyo degmada Mooyaale iyo degmada Mubaarak iyo guud ahaanba qabalay hoosaadyada saddexda degmo ay ka kooban yihiin ayaa isla mar ahaantaana wali sii socon doona lana gaarsiin doona guud ahaanba degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi Daawo iyo qabalay hoosaadyada iyo walibana dadka xoolo dhaqatada ah goob kasta uu joogaba ee ku dhaqan gobolkaasi Daawo gudihiisa Jilaani Cabdinuur telefishinka caalamiga ee STV degmada Mubaarak ee gobolkaasi Daawo shacabka degmada Mullah ayaa soo dhaweeyay biyo-gelinta looga soo jeeday ceelka riigga ah ee Toga Faafaneed warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay wariye Farxaan Axmed degmada Mullah waxay ka mid tahay degmooyinka ka faa'iideystay mashaariicaha mugga weyn ay xukuumaddu ka fulisay sanooyinka u dambeeyay deegaanka degmada Mullah ee gobolka Faafan waxa hareera mara labada tog ee kala ah Faafan iyo Jarar waana dhul buuraley ah haddaba shacabka degmada Mullah waxay in badan wehel la ahaayeen oon iyo haraad kadib markii ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo markaas soo indheeysa soo aragta baahida bulshada ay ugu tagtay goobtooda ayaa waxay u ballan qaaday ceel biyood iyo mashaariic kale oo badan waxaana laga hirgeliyay ceel biyood
biyahani oo laga soo jiiday ceelbiyood laga qoday toga faafan oo u jira masaafo dhan 5 kilomitir iyo bar degmada Mula ayaa waqti xaadirkani shacabka ku dhaqan degmada Mula iyo nawaaxigeeda ay ku baahi baxeen kagana reysteen oonkii iyo raadkii soo daashaday muddada dheer waana kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Mula oo nooga warbixiyay waxaa loo aruurin jiray tamsa iyo maxay ahayd dhurwaale sanax isku meel ka shishaysa loo aruurin jiray waxaa laga yaabaa inta galabta la tago caawa la dhaxo haddana bari la dhaamiyo habeenka dambe gabalku markuu waagu soo bariyay in la yimaado ilaahay baa mahadle alxamdulillah rabbil caalamiin xisbiganaga sharafta leh ee dhaganugul ee dhibaatada caruurtiisa iyo haweenka iyo dhallaanka iyo dhalinyarada iyo odayaasha u dhaganugul ee dhibaatada kala halgama ayaa goobtii aanu joognin noogu keenay biyo ilaahay baa mahadle alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u shukrinaqaynaa xisbiga sharafta leh ee wax walba baahidanada mar walba ka warhaya waxaan ahay odayaasha degmada waxa weeye waxaana soo maray waxaan ka sheekan karina maaha ani waxay soo martay halkan oo awr ka kaxeeyay iyo loodii dhexda ay igaga oontoon haddana dib celiyay loodii aan soo arooriyay iyo haddana dhexda iga oontoon dib aan u celiyay eega waxaan ka xumahay waqtigayga tegay iyo nibcada bilaabatay yaa eega aad murugo igu haysa iyo waqtigayga saan ku soo dhamaystay oonkii iyo silic ahayd waxa weeyaan waxaan maanta helay wax laga sheekan kari maaha markii hore biyaha waxaan noo ahaayeen halkan toga faafaneed iyo toga jareed bay noo xigeen waxaa loo soconay laba lugood 6 saac buu soconay xooluhu waxay u soconayeen 12 saac marka sidaa darteed baahi biyood wayna soo martay dhibaato wayna soo martay waxyaalo badan baan soo maray imika iyo waqtigii hore wax la isku soo koobi kara maaha waxa weeyaan waxaa mahad ilaahay marka hore marka labaad xusbiga macadle dhanka kale xaaji Axmed Mahad oo fuliyay mashruucani ayaa sheegay in waqti yar gudihii lagu soo gabagabeeyay biyagelintan iyo hirgelinta ceelkan ay bulshada ku dhaqan degmada Mula iyo nawaaxigeeduna kaga reysteen meelihii fogaa ee biyaha u doonan hayeen waqti xaadirkan ay ku baahi beeleen biyo la'aanta halkan ka jirtay biyo la'aan badan bay ahayd waayo wax biyo ma lahayn haba yaraatay waxa loo aroori jiray ilaa iyo Horaawd oo 260 kilomitir ayaa loo aroori jiray maanta se waxa dhacday in xisbigeena Soomaaliya Itoobiya uu ka qoday ceel halkaas imika oo irrigation beeraha oo aad u biyo badan kana waxa loogu talagalay magaalada inay ka cabto magaalada kaydka reservoirka iyo ceelkan waxay isku jiraan 5 kilomitir iyo badh marka dadku aad buu ugu noofisay xukuumadeena dadaalkay u gashay degmada Mula waxaa kale oo ka socda mashaariic waaweyn oo kor u qaadaya adeegyada aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaale sida jidadka buundooyinka iyo ceelbiyoodyo kala duwan daryeelka caafimaadka kuwaasi oo wax badan ka bedeli doona noloshii bulshada waxa ayna ka mid yihiin mashaariicahani ballanqaadkii xukuumaddu ay u ballanqaad bulshadani ku dhaqan degmada Mula shacabka qabalaha billaah iyo maamulka degmada Erar ayaa wada dadaal lagaga hortagayo nabaad guurka carrada iyo dhirta sida warbixin umurtaasi ku saabsan inoogu soo diray wariye Cabdalad Cabdifataax mashruuca damaanad qaadka cunnada ee loo soo gaabiyo BSMB ayaa ka bilowday qabalaha Bille ee degmada Erar ee gobolka City haddaba bulsho weynta ku dhaqan qabalaha Bille ayaa abaara 9kii subaxnimo isugu soo baxday qabalaha Bille ee degmada Erar si ay u celiyaan carra guurka qabalahoodan iyagoo xidhxidh ku sameynaya laagaha iyo buuraha si ayna u dhicin carra guur waxayna ka hortag u tahay xaalufka dhulka haddaba qaar ka mid shacabkii ka faa'iideysanayay ee muruqmaalka ahaa ee mashruucan BSMB ayaa nooga warbixiyay faa'iidada uu leeyahay mashruucani sheegayna inay shaqadan ka helaan nolol maalmeedkooda isla markaasina ka ilaalinayaan dhulkooda xaalufka ama carra guurka ku iman kara annagoo dhulkaygana joogna dhulkaygana xidhanayna ciidii waddanka ka tagaysana annaka oo xidhanayna dadweynaha iyaguna dowladda ayna waqtiga gaaban annagoo waqti gaaban shaqaynayna ay bil lagu siiso dadweynaha meesha jooga ee biyo ku nool ama degmada Erar inta ku nool oo dhanba guud ahaantiisaba inuu sidii kolka hore uu ahaan inuu dhexda xidho waxaan isla qaadanay shacabkii annaga iyo degmaduba inaan meeshan xidhano oo faa'iido ka soo saaro oo dhir iyo caws ka soo saaro ayaan faa'iidadan ayaan u shaqaynaynaa annagoo kana faa'iideysanayna annagina nolol maalmeedkina noo faa'iido tahay
ayaan xagga kalena dhulkaygii cariguurkii iyo nadaabguurkii oo dhanba faa'iido kale haddana xoogeygii ka soo saaranaynaa sidoo kale waxaa si wada jir ah nooga warbixiyey xidhxidhkan lagu tayeynayo ciidda lagagana hortagayo cariguurka laguna dhiraynayo buurta gudoomiye ku-xigeenka degmada Erar mudane Saacid Bedel iyo Saadam Jaamac Xaaji oo ka socday shaqaalaha BSMB ee degmada Erar buurtan waa gebigeeda waa la cagaarin doonaa hadii ay beedno meelahan aad arkaysid waa meelii loogu talagalay tracing ama water diversion biyuhu inaysan ka deganin buurta ay hoos dhulka u galaan haddii roobku markuu doo aan xirmooyinkan la samaynin biyu daaragtii ugu ciiday xaaraya marka in qaabkii xirmooyinkan in biyuhu ay water diversion ahaan baa loogu talagalay buurta rajadan kalena waxa weeyaan inaan ku sameeyno area closure insha Allah soo aragtan hoogal la qodqodayo waxaan damacsan inaan ku sameeyno seeding on seed ku shubno annagoo leh soo uga soo baxo product waxaan rabnaa inaan sil ku xirno muddo dhow insha Allah buritaan rabnaa shaqada aan gudo galno buri ka dambeeyna aan sil ku xirno hadduu leeyahay inaan sil ku xirnaan doonina marka kadib si ay u noqoto buur xiran oo dhir kala duwan ka soo baxdo mashruuca BSMB ayaa mashruuca ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu talagashay horumarinta bulshada waana mashruuc wax weyn ka bedelay tan iyo intii la aasaasay nolosha bulshada reer guuraaga ah ee uu ka howlgalo mashruucani BSMB hadalad afta telefishinka caalamiga ee STV qablaha bille degmada Erar ee gobolka City guud ahaanba daawadayaal waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa war wixii naga soo gaadhay guud ahaanba deegaanka waad si toos uga dheehanaysan telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya iyo STV gaar ahaan stuudiyaha xarunta saddex ee magaalada Jigjiga daawadayaal warkayga waxaa si toos idinku waramayay anigu waa Cabdirasaaq Ibraahim Daaja aniga guud ahaanba asxaabtii kale ee kala qayb qaadatay tabinta warkan waxaanu si isku duban idinku dhaafaynaa idinku diyaar garoobaya qaybaha kale oo TV-gu idinku talagalay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh